السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب وائد السلام ميل كستا أدونك دعالadiis ka joogtaan maalin wanaagsan maalin ay tahay aniga door dabadiis waaye ilaa shalay afaarahan ayaan ku jiiray maanta maxaan ku rahday gabagabay canjeeradii aan dubay marqana shalay aan kariyay laakiin xoogaa marba wax yaraan maxaan ku rahay canjeerada ka dubinay ilaa shalay waa cunaynay ma sha Allah tabarakallah. doorawad aan ka waday kolleytaba aniga alaabtan haddaan runta sheego dhaqan ahaan uma lihin aabayaasheen kama dhaxlin hooyayaasheen kama dhaxlin maxaan ku rahdaye waa wax just fun aan iska baranay cunitaankeedana maxaan ku rahdaa aan iska jecelnahay waaye maasha Allah tabarakallah. qalan iyo buugna laguma barin waalidkeena kamaana arkin oo sida loo sameeyo waalidiinteena kamaana arkin kamana soo gaarin dhaqanna uma lihiin asalna uma lihiin laakiin waa waxyaabo aan iska baranay maahano. saliidda waa ka guray wax yariisa ku jiro hadda saliid badan maadaama lagu kariyo bahashaan haddana waan ka guray xoogaa in yaraa kusii jirto haddana korka dhan ay ka saaran tahay laakiin dhib ma laha وكاسا أكون كما درن مانتا because dad ukunta ku nacab aynu ku jiro xasaasiyad ku qabo urkeedii karkeeda marka kaasa maraqaas quruxda badan ayaan sameystay aan rabo inaan canjeero Itoobiya ku cuno canjeero xabashi ma aha maxaan ku rahdaye aqtiki ayaka lagu sameyn jireen I know laakiin waxaan maxaan ku rahdaa ku rajo weynahay saaidna oo kalsoona inaan wax badan isku dayay aan u soo dhaweeyay sida iyaga u sameeyaan masha Allah inaan u soo dhaweeyay ayaan maxaan ku rahdaa aan qiyaasaya sida ay u sameystaan marmar waxaa liisoo weydiiyaa waxyaabo badan oo kala taajiraan oo noocyo badan oo kala taa lagu dardaro lagu cuncuno jiro taasna aniga horta marka horto maqaaxi ma lihi mana ka ganacsada maqaaxi soo jiidashana ma samaynayo oo maxaan ku rahdaye dadka indhaha iyo waxaas inaan kasoo maxaan ku rahdaye saxrado oo wax kasta aan dhasarcaad uga dhigo uguma talagelin mid kale tana 9 weel inaan kariyo 9 maxaan ku rahdaye cunto qasab iguma ahan just wixii aan jecelahay oo karsanaya marka maxaan ku rahdaye intaan ayaa maxaan ku rahdaa anu ku heestaaba oo iga badan maasha Allah tabarakallah. maraqan aad u jecelahay dad badan waxay weydiiyaan Itoobiya ma joogi jirtay xagee maxaan ku rahdaye canjeeradan ku baratay cunitaankeeda iyo yaa ku jecleysay yaa ka baratay ani runtii su'aashaas markaan ka jawaabo Itoobiya weligay ma tagin cagtaydana ma dhigin waan dhigay sorry safaran markuu maray mana dhaafin maxaan ku rahdaye hotelkii aan ku sugaynay transitka mana dhaafin iyo airportkeeda gudaheeda intaas le Itoobiya ahayd kuma soo dhaqmin mana maxaan ku rahdaye joogi jirin weligayna maxaan ku rahdaye caadi habeenba ma seexan weligay saacada yar le markii ugu badneed aan joogay marka Itoobiya weligay ma tagin ana iska bartay mid kale tana wax kasta hadda horumar la gaaray wax kasta YouTube ku jiraan qofka u baahan inuu barto sida loo sameeyo iyo sida loo sameeyo laakiin intaan YouTube ka ba maxaan ku rahdaye la gaarin ka hor ayaan ilaahu isku dayay inaan maxaan ku rahdaye barto oo aan sameysto maadaama aan maxaan ku rahdaye jeclaystay xoogaa maraqan aan aniga ka helaa marka kale to maxaan ku rahdaye hilibka lo'da oo suqaarka lagu cunana kaasna laftirkiisana aad u jecelahay laakiin kana laasim ka sii jecelahay basbaaska lagu daro badan marka meeshan ka soo bartay cunitaankeedana asal iigu horeysayna waxay ahayd Nairobi aan ku soo bartay Nairobi aan ku bartay
maqaaxiyo badan oo Nairobi ku yaalaan ayaa laga cuni jiray markii Nairobi aan joognay. markaan meeshaas tagno anagoo ka baqayno Anjela, markaan Anjela rabnaa marka maanan kala aqoonin ilaahay amarkiisa magacyadeeda iyo waxaas dhan. markay magacyadeeda noo sheegaan ilaa wixii yaqaanaa wax kala dalbado maxaan ku radaa mid hebel aan rabaa yiraahdeen miduna iska dalbanaa kabacdina kii noogu horeeyay naloo keenay kanuba ahaaba maraqii ugu horeeyay oo naloo keenay kanu ahaa oo saan u gaduudan inkastoo digir iyo baradho iyo adduunyo spinach iyo caynba meelaha ka saarnaayeen laakiin waxaas maqaaxi waaye ani guriga markaan joogo waxaan armaan samaysan karaa. taasna waa intaasi marka Kenyaan kusoo bartay cunitaankeeda markastana meel kastoo Etoobiyaanka waa sida noo kaleeto meel kastay tagaan dhaqankooda la tagaan ku sameeyaan intana way joogaan. maxaan ku rahdaayay mida kale Ugandana waan ku arkay iyo maqaaxi ku leh Kisii ku taala aan ka soo gadan jiray marka dad badan waxay dhahaan maxaa masas ma ku arkine maxaa ku jeceshahay iska dhaafaan adunka dadna aqoonin aniga rabee marka waa kaasa walaa bilaa waxa ugu fiican aan Nairobi ka cuno Anjeradaan ahaan jirtay Ethiopia marka marqi waa kaasa Anjeradiina waa tana كل طبعا هو أسكت دايي سيدا يجو بدن أنت يجو بدن ما كرتي دايت بقى يمحن كل هذاي ذلك يجو بدنا أنجليي وأنا كنا سيدا أنا أدبتي ما شاء الله تبارك الله بدن كان عن هداني وكنا ولا هنا أنجرد اللي جدبو وبطبتان بقى وكيررتاي تي هرتو أو سيدا خف أفرت عنيسي كيررتها زايد waxayna ku xiran tahay birta ah haysatid markaas aniga birta aan haysto aad u yar tahay midda baanka gararka lagu dubo waaye taasaan ku dubay marka ma sha Allah waa isku dayay aan leeyahay inkastaan dhaqan u lahayn aanan ahayn maxaan ku rahday dadkii u dhashay baashaan oo cunudeedii iyo maxaan ku rahday lagu soo barbaariyo lagu soo koriyo ahayn haddana waa probiirgareeyay wax badan YouTube-kaygan way ku jirtaa wax badan laakiin sababta maanta u soo duubay waxay ahayd waxaan soo xasuustay su'aalahaasi intee ku baratay Ethiopia ma joogi jirtay maxaan ku rahday Ethiopia leen ku soo mari jirto ka soo baratay waxaas hali way weydiiyaa markastaba soo ana waliga Ethiopia ma ka cunin ma naqtigin maxaan ku rahday waan taasa sidaas u samaystay ma sha Allah tabarakallah maalintaan xasuusto maxaan ku raacay ugu soo dhacdana waa iskaga tuurtaaba ilaahay amarkiisa ilaahay ayaa ii fududeeyay wax dhiba badan kuma arko marka anagoo asxaabey waxaad leeyahay meel kasta joogtiin soo dhawaada ilaa shalay waa cunayay maantana waa cuni doonaa ilaa maxaan ku rahdaa caawa ilaa ay dhamaato waa wadaaya sida ogtihiinba Anjeradan dadka markay samaysanayaan waa arkay dad badan oo samaysto hal mar ay wax badan dubaan ka bacdina wiigaas oo dhan Anjeradaas ay cunaan qofkii wax kala samaysanaa nasiibkiisa laakiin Anjeradan ayay wiiga dhan cunaan fahamtay wiigii la sameeyo ilaa la dhamaystiro inta kale lama karinaayo qofkii maxaan ku rahday laasim ma cuni karin wax kala tala saga kariyaa laasim qasab ma ahayn qofku dub gaajaysan yahay oo samtana rabin wax kasta inuu wax iska cuno waa laasim wax kala cuno marka intaas asxaabay idin sheegay maanta aan la qaybsanahay su'aalahaasna waxaan rajaynayaa dadkii soo weydiiyeen inay maxaan ku rahday ka qanceen oo aan uga jawaabay marka meel kasta joogtay waxaan leeyahay maalin wanaagsan maalintu haydin wacnaato haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad aragto videogayga fadlan subscribe-ka hayla dhaafin like-na ii saar haddii aad ka heshay suulka kor u taag suulka yaroo kor u taagan weeye like-tu midka saasa ha dooranin kasaana dooro dad badan saas u sharaxa waan arkay
subscribe na saaro si aad maxaan ku dhahaa lala socotid videoyaasha cusub oo aan soo wado oo soo gelin doono aadna u noqoto qofka ugu horeeya fiirsada videogayga arka. meel kasta joogtiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay maalinta idin wacnaato. waa idin jeclahay meel kasta joogtiin, my family, my dadkayga, my qaraabadayda, my ehelkayga, my fankayga, kulligiin waxaan kaga tegayaa maca salaamo. duuy.